Guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran Sheekh Shariif Axmed ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxaana kaga hadlay doorashooyinka ka dhici doona dalka Soomaaliya. Sidoo kale Xasan Sheekh madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay jeedinka sameeyay baarlamaanka oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo wax soo qabsoomay. Arrinta labaadna waxay ahaaday kulamadii dhacay guddoonka baarlamaanka iyo madasha dhex maray iyo xaaladda dalka iyo doorashooyinka. Marka hore waxaan wada ognahay dalkan doorashooyinkii ugu dambeeyay waxaa la xaqiijiyey oo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay ku faani karaan in doorashada xilligeeda lagu qabto doorasho degan oo laga wada tashaday oo natiijadeeda la wada ixtiraamo ay noqoto. waa guul dadka Soomaaliyeed soo hooyatay oo ayna muhiim tahay in la xaqiijiyo arrintaas. madashu iyadoo taas ka duulaysa waxay aaminsan tahay inay lagama maarmaan tahay doorashooyinku inay waqtigooda ku dhacaan ay noqdaan doorashooyin hufan laga wada tashaday raali laga yahay natiijadeedana qof walba oo Soomaaliya uu diyaar u yahay inuu fuliyo. sidaas darteed madashu waxay ka digaysaa muddo kororsi magac kasta loo bixiyo oo ay ka shaqayso xukuumadda. si taas loo gaaro waxaa lagama maarmaan wada hadal dhab ah oo ku aadan arrintaas oo saamilada siyaasadeed dhammaantood ay ka wada qayb qaataan dowladda xubnaha ka ah ama dowladaha xubnaha ka ah maxaan ku yidhaahdaa dowladda dhexe ay ka wada qayb qaataan ama saamilada siyaasadeed dhammaantood. taas si loo helo waxay u baahan tahay abuuris jawi kalsooni xasilooni iyo wada tashi. waxaan soo dhaweynaynaa maanta go'aanka aqalka sare ay soo saareen oo ay ku baaqeen in laga wada tashado arrimaha doorashooyinka. waxaan leenahay waa go'aan geesinimo leh loo baahan yahay xilligiisa yimiday waana soo dhaweynaynaa. sidaas oo kale wada shaqaynta labada aqal iyadoo la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka ayadana aadan mataqaanaa u dhiirigelinaynaa inay wada shaqeeyaan labada aqal marxaladda soo socota dhammaystirkeedana si wanaagsan oo wadajira loo wada shaqeeyo. sida aad la socotiin madasha xisbiyada qaran waxay aad ugu hawlaneed in xiriirka dadka Soomaaliyeed u dhexeeya ama ha noqdaano dowladda dhexe siyaasiyiinta ama axsaabta siyaasadeed iyo dowlad goboleedyada in la xoojiyo. aan ka tirsanayn ciidamada Amisom oo dowladaha dariska ay leeyihiin oo mar walba soo gala ama jooga geystana dembiyo. arrintaas waa arrin ka soo horjeeda heshiiska ay ku joogaan ciidamada Amisom keenaysana kalsooni darro in lagu soo dhex daro ciidamo aan ka tirsanayn. oo aan rabo inaan ka hadlo waa qodobka xisbiyada dalkan muddo dheer waxaa ka socday oo lagu soo socday 4.5 xisbiyada asbaabta loo sameeyay inay hanaan cusub oo siyaasi ah oo dalkaanuna ku horumari karo ummaddu isku raaci karto inay keenaan. madaxweyne Sheekh Shariif Axmed reebin wixii laga hadli lahaa oo muhiimka ah oo runtii asaga ka hadlay oo si hadlay. aniga waxaan rabaa bas inaan dhowr meelood aan si xoojiyay oo isaguna u qaado dalkan iyo maanta waxa taagan iyo muhiimadda taagan. horta dalkan sidiisaba dhibaatada iyo duruufaha 30 sano la soo dhaafay dalkan ka jiray nooc kasta iyo heer kala duwan kasta ha lahaadeen inaan beesa haysanin iyo inaan dhul qacbada qabin iyo inaan bad qabin iyo inaan biyo haysan inaan faqri nahay ma ahayn. dalkani waxa uu beelay oo dumiyey markuu dumay kadibna ku sii hay waa soo aragnay badacada aan fiicnayn sida ay oo weliba markii badaca fiican aydan ahayn haddana dadka in lagu khasbo lagu dayo waaba ka sii dhib badan tahay ka sii xaraartay. dalka marka ayadoo xaaladiisa sidaas ay tahay xaqaa'iq ka jiro usaas yahay waddo dheer uu soo maray muddadii 20 sano ee weliba ugu dambeysay mar meel uu kasoo gudbayay oo bulkeeti la dul saaray oo soo ahaa maanta aad iyo aad ay nasiib darro u tahay
iyo jab kala qariyaa la yiri dadka Soomaaliyeed waa in loo sheegaa hadday dhib leedahay xataa waa in loo sheegaa laakiin inaan loo sheegin oo mar walba dadku ay banaankaas u warka ka maqlaan oo markaas warka dadka isku dhaxmaraan mid runa iyo midaan run ahayn haddana la sii suubiyo oo la sii waxay jaawareerka ku sii kordho cabsida kororto shakiga iyo maxaan ku raadaya kala muxuu ahaay suuqaanta ay kororto waxa waaye dhibaato weyn waaye marka in badan oo horena waa ka hadlay aad inaan ugu celin marro madaxweynaha dadka hala hadlo waa ku celinaynaa mudana madaxweyne adiga oo mahadsan muxuu ahaay dadka la hadal waxa jirana u sheeg dadka la hadal xaaladda jirta u sheeg hadday macaantay guula tahayna u sheeg oo u caddee si ay ugu qanci karaan hadday kharaar tahayna u sheeg labadaba ayagaa iskale dalkuna waa dalkoodii dalkuna waa dalkooda laakiin maalin walba sida hadda madaxweynaha uu dhahay abiyey axmed inuu noo sheego hadda maalin weyne baarlamaankiisa wuxuu abiyey axmed furay waxyaabo kale oo kasii dhib badan oo aad iyo aad muxuu ahaay allo waxay arrinta doorashada waa ka hadlay laakiin waa na hortaagan tahay mushkilad hadday ku hortaagan tahay xalay rabtaaye inaad kasii jeesatid xalkeeda ma aha haddaa inta usii jeesatid haddana way ka hor imaanay mushkiladdu waa taagan tahay qadiyadda doorashada ee 2020 oo soo muuqda muxuu ahaaye meeshay ay ku ekeeday ka hadliday mudan tahay xalay mudan tahay qof iyo hal institution oo dowladdu leedahayna maxalli kale shalay institutions xadidan oo dowladdu wariye cabdinaasir maxamuud xaaji axmed cabdinaasir qujufa dulqaad meediya freelance journalist and photographer